magaalada Baydhabo ee gobolka Bay dhaqdhaqaaqyo culus ayaa ka taagan. Aadan Madoobe ayaa bilaabay inuu tago furimaha dagaal isagoo oo muddooyinkii ugu dambeeyay cabsi adag ku wajahayay gudaha Baydhabo. Raxaweyn shirweyne ayay yeelanaysaa waxayna ka tashanaysaa baa la yiri aayaheeda in maalin kasta wiilal walaala isdilaan midna lafta garan u dagaalamaya midna Aadan Madoobe xas sheekhna uu sheedaa sare ka daawanayo uma cuntamaysaa la yiri shiraan naba caadi ahayn ayay yeelanayaan guud ahaan beelaha digil iyo mirifle. waxaan ku soo gudbinayaa xogta shirkaas halka uu ka dhacayo sidoo kale aadan lafta garan oo ah walaalka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa la weydiiyay waxa ka jira walaalkii in uu la xiriiro kooxda al-shabaab oo argagixisada uu ka tirsan yahay war ka soo baxay ninkaasi walaalka laha Cabdicasiis lafta garan waa aan ku hayaa soo dhaw ka aragti dhiibo si guud xaaladda Baydhabo ayaa neegaynaa habeenadii ugu dambeeyay kufsi iyo waxa la soo wariyay dhaca moobelada oo aad u soo badanayay oo dad badan markaas lagu dhibaateeyay gudaha magaalada sida ay xogtu leedahay soo dhaw ka aragti dhiibo muuqaalka like saar siina share garee waa mahadsan tahay magaalada Baydhabo dhaqdhaqaaqyo ayaa ka taagan duleedkeeda waxaa jooga ciidan ka tirsan kuwa maamulkii laga adkaaday ee lafta gareen oo iyagu dhibaato ku ah hoggaanka cusub ee hadda dowlad doortay ee Aadan Madoobe aadan markii si uusan Baydhabo isaga joogin oo Muqdisho iyo Baydhabo uu soo dhaxayn furimaha dagaalku maanta tagay isaga oo tikniki gaari dagaal wata Aadan Madoobe ayaa maanta ka soo muuqday furimaha hore ee dagaalka kadib markii uu booqasho ku tagay ciidamada qalabka sida ay ku sugan furimaha laga ilaaliyo amniga Baydhabo ee xarunta gobolka Bay intii uu ku guda jiray booqashada waxa uu kuurgalay la yiri xaaladda ciidamada howlaha ay hayaan iyo dadaalada ay ugu jiraan sugidda amniga in guud ahaan magaalada Baydhabo ay ka dhigaan amni sidoo kale wuxuu ciidanka ka dhigaystay warbixin ku saabsan xaaladda amni ee furimaha iyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga Baydhabo madaxweynaha Koonfur Galbeed Aadan Madoobe ayaa sidoo kale ciidamada ugu hambalyeeyay guush iyo geesinimada ay muujiyeen gaar ahaan iska caabintii ay kala hortageen weerarkii maalmo ka hor ciidanka taabacsan lafta garan ay ku soo qaadeen waa isniinta toddobaadkii hore hogaamiyaha ayaa intaas ku daray in ciidamadu yihiin laf dhabarta amniga iyo xasiloonida isla markaana Koonfur Galbeed ay muhiimad gaar ah siinayso tayeynta iyo sidoo kale taageerada ciidamada ku sugan furimaha dagaal iyo goobaha muhiimka ah ee amniga ugu dambeyn wuxuu ciidamada ku dhiirigeliyay inay sii wadaan hawsha adag ee ay u hayaan bulshada isagoo xusay in shacabka Koonfur Galbeed guud ahaan ay garab taagan yihiin ciidanka Aadan Madoobe furimaha dagaal inuu ka soo muuqdo sawir kale ay muujinaysaa baa la yiri waxaana muuqanaysa in wali uu socdo guluf dagaal lafta gareena uusan ka quusan in mar uun gacantiisa ay soo gasho magaalada Baydhabo oo uu ku mintirayo ninkan geesta kale aadan lafta gareen oo ah nin la dhashay hogaamiyaha Koonfur Galbeed waxa lagu magacaabaa xildhibaan aadan xasan maxamed lafta gareen walaalo waxay yihiin madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysay walaalkiis iyo dawladda dhexe taasoo isku bedeshay gacan ka hadal aadan lafta gareen oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka waxaana wax laga weydiiyay xaaladda siyaasadeed ee amni ee Koonfur Galbeed xildhibaanka ayaa walaalkiis Cabdicasiis lafta gareen ka difaacay eedeymaha la xiriira al-shabaabnimada ee loo jeediyay kadib weerarkii ay ku soo qaadeen ciidankiisa magaalada Baydhabo oo lagu shabadeeyay argagixiso ninkii walaalkii al-shabaab ku tilmaamay isaga ayaa laga rabaa inuu cadeyn keeno ayuu yiri ninkan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo muddo ku soo jiray Koonfur Galbeed xilligan waxay wajahaysaa xasarad iyo xiisad siyaasadeed oo aan la dhayalsan karin waxaana deegaanada maamulkaas ka taagan ismariwaa u dhaxeeyay hogaamiyihii hore ee maamulkaas Cabdicasiis lafta gareen oo wali quudareynaya kursiga dharaacad laga eriyay sidoo kale Aadan Madoobe oo isagu dhawaan gal ku ah xilka madaxweynaha welina aanba madaxweyne la oran oo hogaamiye uun hadda loogu yeerayo ayaa isaguna ku adkeysanaya ama raba inuu difaacdo kursigaas wuxuuna rabaa in deegaankiisa aan mar kale loogu soo garan wixii warar ee soo kordho kala soo halkan